جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة. aan mid idinla wadaago noloshan aynu noolnahay adduunyo laga filimayo in ay marnaba inoo dhammaystirnaato. cid taariikhdu ay qortay oo hore ugu dhammaystirnaydna lama hayo, oo hadday jireen maanta lagu dul arki lahaa adduunka. mustaqbalka soo socda saadaashu waxay tusaysaa inay u dhammaystirnaan doontana ma jirto. markii xaqiiqada noocaasi qalbigeenna ka dhaadhacdo, waxayna ka fududaanaya culays fara badan oo dadka qalbigooda intuu ku dhaco kadibna ay doontoodu badda salkeeda la tagto la degto. oo aan ka wado inuu murugo iyo kurbo iyo ciriiri uu dareemo oo ay noloshu la kharaaraato. waxaan doonayaa inaan kula wadaago ilaa 5 shay oon isleeyahay noloshu macaankeeda waad ku dhadhamin karaysaa. shaki ma lahan qodobada ugu horeeya, inkastoo uusan qodobadaydan hadda ka mid ahayn, horena aan hadallo hore ugu soo qaaday. qodobka ugu muhiimsan qofka noloshiisa ee macaan dhadhasiin kara waa inuu rabbigii abuurtay addoonkaasu ku xiran yahay, oo umuurihiisoo dhan u sheegto, oo uu isaga gacmaha u hoorsado, oo uu ogaado inuu daciif yahay aan awood lahayn. taa inuu qirto dacfigiisa inuu qirsan yahay. cidda ugu horraysa u qiranayaana ay tahay allah subxaana wa tacaala. cidda ugu dambaysa uu u qiranayaana ay tahay allah subxaana wa tacaala. markaan intaa ka soo gudbo, waxaan rabaa inaan ku bilaabo qodobka koobaad. waxaa ma samayn kartid markay cidku tiraahdo fadlan waxaad ku dadaashaa inaad beenisid hadalkooda. dadka qaarkood qofkaa ma guursan kartid, waxaas ma baran kartid, sidaa ma yeeli kartid marka lagu yidhaahdo qalbigaa ka jaba. dadaalkii uu ku jiray kala bar intaasaa la tagta. inta kalena waxaa la harta markuu dadaalo oo uu mar guul darraysto oo mar kale haddana dadaalo oo haddana guul darraysto, faruhu ka qaadaa. marka wuxuu yidhahdaa waxaan shalayba waa tii lagu sheego lagu yidhi ma samayn kartid. laakiin wuxuu iloobaa qofkaas waxaan inay adduunyo tahay. noloshana imtixaanaadkeeday ka mid tahay in lagu imtixaamo. darajooyinka sarsare ee jaamacadaha dadka helaa ma bilaa imtixaan bay ku tageen? dabcan maya. qofba qofku ka imtixaan kulul yahay waa uu ka darajo sarreeya aakhiro. adduunkuna waa sidaasoo kale maanta. imtixaanaadku way kala marka baalka lagu rogi doono ma imtixaan adag baa mise waa mid fudud? taa inagu ma lihiin doorashadeeda. qodobkaasu marka waa qodob muhiima ayna tahay qof kasta inuu ku dadaalo. qodobka labaad ee noloshu runtii u baahan laga barto waxaa ka mid ah in aadan hadafyadaada cidna uga sheekayn. waxaa laga yaabaa gabadha ama wiilku wakhtiga isguursanayaan ee guri galayaan bay dadka uga sheekeeyaan. kadibna maalmaha u dhaxeeya wakhtigii ay sheegeen iyo wakhtigay taagiin inta u dhaxaysa ayaa khilaaf badan yimaada. kadibna way kala wadooyinkooda kala leexsadaan oo qofba midig iyo bidix baa la kala aadaa. oon ka wado waa la kala haraa. kadib meeshii maxaa ka soo baxa? inay been sheegayeen. dabcan waxaa leeyahay labadaa qof waxay ku fakar. marka bulshada ha la wadaagin hadafyada aad leedahay, cidna lalama wadaago. hadafkaaga markaad gaartid, natiijada qurxoone ka soo baxday dadku ha arkeen. muhiimaddu waa taa. qodobka saddexaad wuxuu yahay waxaad noqotaa qof naxariis leh, qof bini aadamka dareenkooda dareema oo garta qofku hadba waxa uu dareemayo. saaxiibka, dariskaaga, qaraabadaada, waalidkaa, inaad dareemi kartid dareenkooda. ood qof dabacsana u naxariis badanina ahaatid. gaal iyo islaam qofku kuu doonaba ha noqdo, inaad tahay qof naxariis loo dabacsan oo aad u dareentid dadka sida aad jeclaan lahayd in adiga lagu dareemo. qodobkayga afraad wuxuu yahay in aadan cidna niyadda ka jebinin. dadku waxay in fara badan maanta ku dhaca intuu qofku dad fara badan niyadda ka jebiyo. gabadhu wiilal fara badan bay shukaansataa, mid walbana been bay ku akhridaa. mid walba niyaddiisa qayb bay ka jebisay. waxaasoo niyadaah ay jebisay
ma garanayso mideeba ilaahay toos ugu xirnayd ma garan karayso waxaa la yiraahdaa qalbiga jibinaysid ka fiirso ma ogid inuu yahay qalbi ilaahay subxaanahu wa ta'ala u jecel yahay sadarteen ba waxa dhacda in ay intaasoo qof qalbiga ka soo jebiso kadibna qofkay nolosha istiri alla ilaahay waa kii ugu fiicnaa markay u soo dhawaato inuu xanuunkay kuwaas u dareemeen oo dhan uu dareensiiyo sidoo kale wiilasha ilaahay qurux buu siiyey xoolo u dhiibay waxaa jirta wax gooniyaho dabci ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu siiyey oo soo jiida shalay qofka kadibna in aad jacayl ku abuurtid oo uga faa'iideysatin waxa ilaahay subxaanahu wa ta'ala adiga ku siiyey oo kadibna aad meel cidla uga dhaqaaqdid mid walba niyada ka jabisi maxaa dhacaya marka baribaad waxa marka dhacaysa inuu wiilkaas uu la guri galo gabar ciriiri adduun dareensiisa oo dhadhansiisa ciriir nooc kasta uu yahay oo niyada ka disha oo wixii uu dadka ku soo sameeyo dhan in laga jaro wa tilka al-ayyaamu nudaawiluha bayna an-naas nafsigaad urursanaysin maalin baad mirihiisa guran doontaa isagoo aad u kharaar cid kula cunaysaana aysan jirin saadarteed ka fiirso oo dadka niyada ha ka jabinin qodobka shanaad wuxuu yahay qofkaad jeceshahay u sheeg meeshuu kaaga yaalo dareensii maalin walba cusboonaysii jacaylka qofka aad u haysid wiilkiiyo gabadhu intay shukaansanayaan maasajyada la isu qorqoraa xabiibtii I miss you waan kuu xiisay babe maasajyo fara badan baa la qorqoraa laakiin marka guriga la soo galo ayay waxay galaan wiilka iyo gabadha Soomaaliyeed jadwal ay korontadu ka dansantahay abaar ah jawi dansan on koronto lahayn iftiin lahayn oo labada qof aynan isdhaafsanin hadallada noocaasa taasa waxay keentaa marka khilaaf iyo labadii qof ee la yaabanaa jacaylkooda the Romeo and the Juliet labadii qof ee la yaabanaa Qays iyo Layla waxaa soo baxda marka laba qof oo aad u kala fog oo dagaalsan oo maalin walba is xagxaganaya oo dadku la yaabaan oo fahmi kari waayaan taa maxaa ay ka dhalatay marka in uusan qofka kale mar walba dareensiinayn meesha uu kaga yaalo kan kale hadiyadihii baa meesha ka baxaya cashooyinkii baa meesha ka baxaya waxaa marka bilaabanaya boos walba oo maxabadii iyo kalgacalkii uu ka baxay wax kala bedelaya oo nacayb ah sadarteed ku dadaal inaad u noqotid qofka waxaad jeclaan lahayd adiga in lagu noqdo haddaad maalin kasta jeclaan lahayd in ay xaaskaaga ku tiraahdo xabiibi waan ku tabay ama waan ku jeclahay inay ku tahay haddaad jeclaan lahayd sidaa adigu samee marka hore weligaa waxaad noqotaa gacanta sarraysa oo u noqo qofka waxaad jeclaan lahayd adiga in lagu noqdo jacaylkaad adigu doonaysid ha noqonin mid isagu laga waayo waa isu dheelitirnaan noloshu waxaan kelmaddan ku soo gabagabaynayaa jacaylka iyo kalgacalka doonaysid waa dhisan kartaa laakiin waxaad adigu ka abaaraysan tahay marna cidna ha ka filin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh